haddii sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan inaad tahay waa la saxay inaad tahay waa la saxay haddii gesi sama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan inaad tahay waa la saxay inaad tahay waa la saxay siyaasiga cambuxo sumad qarankani lahaa aga darajada u suray saraakiisha heegankiyo nidaamku siduu ahaa siyaasiga cambuxo sumad qarankani lahaa aga darajada u suray saraakiisha heegankiyo nidaamku siduu ahaa aday sabiiyo haween intay ku sarakaceen kolkale ku sacabtumeeno aday ku salaamayaan aday ku salaamayaan aday sabiiyo haween intay ku sarakaceen kolkale ku sacabtumeeno aday ku salaamayaan aday ku salaamayaan sada shumadhelido aqoontu masiibadee aday sumcadiyo kartida karamada ereyga sugan karamada ereyga sugan sada shumadhelido aqoontu masiibadee aday sumcadiyo kartida karamada ereyga sugan karamada ereyga sugan bulshadu kugu saacido horseedka u saan xidho sibraarka u buuxsadee shacbiga samowgu adeegan markale ha lagu suntee bulshadu kugu saacido horseedka u saan xidho sibraarka u buuxsadee shacbiga samowgu adeegay markale ha lagu suntee aday sabiiyo haween intay ku sarakaceen kolkale ku sacabtumeeno aday ku salaamayaan aday ku salaamayaan aday sabiiyo haween intay ku sarakaceen kolkale ku sacabtumeeno
kala soo jireen ummadda wada siin karo ismaan dhaafiya sawiga dibkiisa ka tigala xumaanba ka suuliyo dareenkii ka saara jiray ummadda wada siin karo ismaan dhaafiya sawiga dibkiisa ka tigala suuliyo dareenkii ka saara jiray aday sabi iyo haween intay ku sara kaceen kol kale ku sacabtumeeno aday ku salaamayaan mudane ra'iisul wasaare golaha xukuumadda odayaasha dawladda federaalka iyo dawladda Puntland shacabweynaha reer Karkaar gaar ahaan degmada Qardho saxaafadda gudoomiyaha degmada Qardho dhammaan marlabaad salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mudane ra'iisul wasaare farxad bay noo tahay inaad noo timaado maanta halkan nagu soo booqato gaar ahaan gobolka Karkaar degmada Qardho soo dhawow waan ku leenahay aad iyo aadna waxaan ugu faraxsannahay adoo ah ra'iisul wasaarihii dawladda Soomaaliya ahna murashax u taagan xilka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya soo dhawow aan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waana ku faraxsannahay inaad noo timaado shacabka reer Puntland gaar ahaan gobolka Karkaar xaqiiqda waxay taageersan yihiin siyaasadda aad ku hogaaminaysay xukuumadda aad ra'iisul wasaaraha u tahay iyo waxqabadkaagaba mar labaadkana waxay aad iyo aad ku taageersan yihiin adoo u taagan xilka murashaxa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya 2016 anoo ku hadlaya afka shacabka reer Karkaar dhammaanteen waxaan ku rajaynaynaa inaad ku guulaysato xilkaas insha Allah bacdalintaas mudane ra'iisul wasaare shacabka reer Karkaar waxay aad iyo aad uga xun yihiin dacaayadii raqiiska ahayd ee la faafiyey ee ku saabsanayd badda Soomaaliya xaqiiqdii waxa la ogsoon yahay dadkan reer Karkaar waa dad xaqiiqdii kana warhaya siyaasadda barkasta meesha ay barayso geedka haysato xaqiiqdii waxayna ka warhayeen mar walba meesha ay xaaladdu maraysay waxaan dadku aanay aqoon dadka waxaa iskaga qaldan memorandum of understanding baa iskaga qaldan iyo wax la iibsaday xaasha lilaahi waxaan leenahay uma qalantid in dacaayada raqiiska la yidhaahdo dadka kale waxaanu ogsoonahay waxaanu naqaanay ama taariikhda sahaynaa cabshir cali sharmaarka allah u naxariiste adiguna la mid baa tahay mirihiisi baa tahay muwaadin baa tahay Soomaaliyeed kelmadahaas la yiraahdana ma geedin shacabka reer Karkaar aad iyo aad bay uga xun yihiin inta haddaan ka gudubno mudane ra'iisul wasaare gobolka Karkaar waxaa ka jira diraac ballaaran baa ka jirta roob la'aan baa ka jirta ilaah baanu la baryayaa maanta degmooyinka qaarkood waxa ka dhacday roob doon baa ka dhacday waxaan xusayaa madaxweyne allah u naxariiste cabdishiid cali sharmaarke inuu tagay Hargeysa iyo Burco inay yiraahdeen noo ducay inuu duceeyay ka bacdina gobolada looga bixiyo rooble maanta waxaan ka rajaynaynaa ulaan riba tahay ilaahna ka rajaynaynaa inaad u ducayso shacabka Soomaaliyeed in ilaahay dhibaatada ka saaro mar labaad in raxmad caaniya ah waa la soo guurin in ilaahay ummadiisa u shubo waxaan rabnaa maanta inaad ducaysana waa ka rabnaa ra'iisul wasaare aad iyo aad baad u mahadsantahay dhagaysigiina waqtiguna waa waqti ku weeye shacabka reer Karkaar markaan ku celiyo siyaasadda iyo xukuumaddaada aad hogaaminayso way taageersan yihiin murashaxnimada xilka madaxweyne aad bay u soo dhaweynayaan ku soo dhawow mudane ra'iisul wasaare
waxaan rabaa runtii inaan mahad gaar u celiyo madaxda dowlad goboleedka puntland madaxa gobolka karkaar gudoomiyaha degmada qardho dhismada iyo nabaddoonnada iyo duubabka deegaankan iyo dhammaan dhallinyarada hablaha kulli ummadda reer qardho ee maanta halkaas ugu soo baxday wax la soo koobi karo maaha runtii farxadda aan faraxsanahay sidaa ogsoontiinna magaaladan annaga taariikh gaar inugu leedahay waana magaalo runtii taariikh waddanka soomaaliyeed ka leh waxaan insha allah biidnillaahi tacaala soomaali uu ku soo dabaalo nabad xasilooni iyo barwaaqo waa ogsoonahay maanta wakhti hore ayaan yimid quraxda waa qulushahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaga mahad celinayaa runtii taageerada iyo soo dhoweynta wax la soo koobi karo ma aha waxaan idin ballan qaadayaana insha allah inaan guusheed idin keeno biidnillahi tacaala waana mahadsantihiin waana insha allah waa joogayaa maalin iyo labo waana saafeena biidnillahi tacaala waa mahadsantihiin